ونبينا الله صلوات ربي وسلامه عليه نبا قواميي إنو عاو صدقات لبحو صدقاتي بو قاضي قرأوا وحل مدو واسقرينيا صدقاتي سربا إني نقطة مد خالصة مدان عيد الله أغين الله موياني تأتنا قفت مرامي المريسوق عنتك قليي ورنت إيدي أما عيدك لأغاتي صبحي وحلقو شاكيستي هبلا يدي أنوانك سني حميد جيركي ذا كقنعسان جيرتي أيا قفها أكسن لمودي صدقتنا والسية وركي بالسلد حولي إساقي بوركي سوق علي إلهي واكو مها سيدي آدادوغو دونتو أيوم بعد عيا هبين كي دمبولا كعلي وعاونا وإنام بحيا هبين كي نوحو لقو ذي حوله وبحني هبين كان وحو لكل مي نين مال قبينا أيوك عنتك قليه سلقو أغاديبا صبحي والله هذا هيا وارنيكي هبل حولها لعير أيي سقبتيسو أيا سقيسي أيا وحلوغو درايو ووين صبا كشبا نغضيو وارنيكي نحولا ما أنت اللوغو دراي سنحل الحمد لله على كل حال إلهي وطانا وادكما أصنتهي وقوان كاغ أنو شغاكم له وقضاء قدر بلان هدنا كل عليو هبينكي كلو هدنا قاضي هبين كان متوغا oo ku sii socoya tuugadii iyo ka soo socoya mid ay tahayba habeen kana wuxuu u dhiibay mituuga ayuu gacanta ka galiyay sidii baa loogu sheekaystay waan xalayna kaynu ogay ee ummadaba yareeyay ee xoolihii ka gurtay ayaa qof hagaagsan la moodo sadaqad loo dhiibay intiiba uu isku daro wuxuu ilaahayow adaa ku mahadsan hadday gabadh xun u gashay iyo hadday tuugu gashay iyo hadday qani u gashayba intaba ilaahay waada go'aankeeda leh markaasa riyal loogu yimi manaam xaqa ayaa loogu yimi markaasa lagu yiri meel xun kaama marin sadaqadaadii way hirgasho waa lagu aqbalay hadday tahay qofka dumar ee xun waxa laga yaabaa inay sadaqadaadaaba kaga joogsato xumaantii inay balaayada ay ku jirtay barakada xoolahan sadaqada ee ilaahay dartii looga jeedaa inay kaba hakisaan laga yaaba marka sadaqadiina waa lagu aqbalay midhana inay keentaa laga yaabo ama qofka qaniga ah ee maalqabeenka ahaa inuu isna ku taamila qaataa laga yaaba oo war dunida waxa ku nool rag wax bixiya shaw asaagaa way bixiya shaw aakhiray ula baxa bahashanaad kaydinayso ee dusha ka salaaxayso ee maalinba inta ku korodho ku fikirayso waa dhinacaasa laga wadaa janna lagu iibsadaa inuu ku fikiro ayaa laga yaabaa oo isna uu bixiyo oo aad noqoto mid dariiq fiican u jideeyay oo uu kaa daba maro ood ajarkiisii yeelatid ka tuugaana waxa laga yaabaa inuu tuugadaba kaga nasto oo xoolahanaad siisay ilaahay kaga baqdo oo uu ka joogsado dhacdada noocaasa النبي الكريم كي صلوات ربي وسلامه عليه إنه شيء وحين كلا بحين دور الريموت أرنك كوباد وجهر يا وحويه إلهي سبحانه وتعالى قوانك وردو يسدو أدونك ومعمولو يسدو ودقابا ومهد إلهي والله مهديا ويوحت يا أدون للي هي سيدا ربابو إلهي كو معموليا حكمت بانو كو معموليا adugu warka ma qabtid dhinaca ku wanaagsan garan maysid sida ogeed waa inaad mar walba tiraa alxamdulillaah laakiin xadiisku wuxuu inoo sheegayaa laba nooc baad u xamdalaysanaysaa ama ilaahay u mahadinaysaa haddii wuxuu wax wanaagsan yahay waxaad odhanaysaa alxamdulillaah alladii binicmatihi tatimmu saalihaat ilaaha nicmadiisa waxa wanaagsan ku dhammaystira ayaa mahad leh إلا وحنا سبب سوقاني وأدوق آد ماكتي سدا أوجد لبس صحابي أو إسرائيلي أو أبي سوا أي النبي سليمي يجوز قبصدي طلوا محيسكو هايستان وور عجيبة صحابي والدك أي صدق الله بحياة زائدة ليلة صدقتي مطبعين وقريو نين مالس كهر دم مساجدك oo duuduuban ayuu madaxa u galiyay
halkaa barkinta hoosteeda ayuu lacagtii u geliyey ninkiina markii uu toosay muu barkimadii qaaday lacag buu ku arkay iska qaatay wuxuu ogaaday in isaga loola jeedo aabbihii buu la tegey aabbo lacagtanaa lay siiyeeyo anoo hurdaa ayaa madaxa lay geliyey oday waa ku soo booday anigu ahaa adiga kumaan jeedin kan lacagta yaabba ilaahay baa isiiyo waa arsaaqade iiddaa may cid kalean ku waday aduu inankaygii baa tahay nafaqadaada iyo biilkaaga igu waajiba socon mayso waa inaad soo celisaa iyo nebiga inoo gee nebigii baa laysula tegaya nebigu wuxuu ku yidhi laka maa akhadta yaa macan wiilka macan baa laydhaa wixii aad qaadatay allah ku siiye qaado odayowna wixii aad niyootay baad leeday adna niyadaadaa ilaahay kuu qaaday waar adna arsaaqad baa ku soo gashay waydinkaasi kala shaqo taga marka cidday doonto gacanta ha u gashee haddiiba ay kaa baxday ma soo noqonayso niyadaadu hadday wacan tahay qodobka saddexaad walaalayaal wuxuu yahay qofkii sadaqadda bixiyey hadduu yar shakiyo hudha malaa meel wacan may marin waxaa loo sunneeyaa inuu ku celiyo waayo khayrunbaa u soo kordhay haddii labadaba la wada aqbalana wanaagsan oo wacan